iska jira inaydan xaqnimadiina dadka ku hor sameen inaydan arkaan haddii kale abaalkuma lihidin aabbihiina jannada ku jira haddaba markaad sadaqa bixinayso buun ha ugu dhufan hortaada sida laba wajiilayaashu sinagoogyada iyo jidadka ku sameeyaan si dadku u ammaanaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad sadaqa bixinayso bidixdaadu yaanay ogaan waxa midigtaadu samaynayso si ay sadaqadaadu u qarsoonaato oo aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa kuu abaalgudi doona oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida laba wajiilayaasha waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sinagoogyada iyo meesha jidadka isku gooyeen si ay dadka ugu muuqdaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoon gal oo goortaad albaabka xidhid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari oo aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa ku abaalgudi doona goortaad tukanaysaan hadalkaa ku celcelinina sida dadka aan ilaah aaminin yeelaan waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale waayo aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tihiin intaanad weydiin haddaba sida tan u tukada aabbahayga jannada ku jirow magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado doonisteeda dhulka ha laga yeelo sida jannada looga yeelo kibis maalin nagu filan maantana sii oo naga cafi qaamahayaga sidaan ugu cafinay kuwa noo qaamaysan oo jiribaad ha noo kaxeen laakiin sharka naga duu waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa aamiin waayo haddaad dadka u cafideen xumaantooda aabbihiina jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona laakiin haddaanad dadka cafiyin aabbihiinu xumaantiina idin cafi maayo kolkaad soontaan ha ahaanina sida laba wajiilayaashu u fool qulubsan yihiin waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fool dhaqo si aadan dadka ugu muuqan inaad sooman tahay laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa waa kuu abaalgudi doonaa maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo miridhku ka baabi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oo ka xadaan laakiin maal jannada ku urursada meesha aboorku iyo miridhku ayna ku baabi'in iyo meesha tuugagu ay jebin oo ayna ka xadin waayo meesha maalkaagu ku jiro meeshaasaa qalbigaagu ku jiri doona ilayska jidhku waa isha haddaba haddii ishaadu hagaagsan tahay jidhkaaga oo dhammi wuu iftiimi doonaa laakiin ishaadu hadday xun tahay jidhkaaga oo dhammi gudcur buu ahaan doonaa haddaba iftiinka kugu jira hadduu gudcur yahay gudcurkaasi sidee buu u yahay ninna laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu qursanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ha ugu walwalina naftiina waxaad cuni doontaan iyo waxaad cabbi doontaan jidhkiinina ha ugu walwalina waxaad u huwan doontaan naftu miyaanay ka roonayn cuntada jidhkuna miyaanu ka roonayn dharka shimbiraha cirka eega waayo waxba ma beeraan waxna ma gurtaan maqsinana waxba kuma urursadaan oo aabbihiina jannada ku jira ayaa cunto siiya idinku miyaydanan ka roonayn midkiine intuu walwalo dherarkiisa dhudhun ku dari kara maxaad dharka ugu walwasheen fiiriya ubaxyada duurka siday u baxaan ma ay shaqeeyaan ma ayna miiqdaan weliba waxaan idinku leeyahay xataa sulaymaan wakhtigii ammaantiisa oo dhan dhar uma u gashan jirin sida kuwan midkood laakiin haddii ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo berito moofada lagu ridayo sidee ka badan ayuu idin huwinayaa rumaysad yarayaalow sidaa darteed ha ku walwalina idinkoo leh maxaanu cunaynaa ama maxaanu cabbaynaa ama maxaa
tihiina jannada ku jira waa og yahay inaad waxaasoo dhan u baahan tihiin laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaasoo dhan waa laydinku dari doonaa sidaa darteed berito ha ka walwalina waayo berito iyadaa isu walwalaysa maalinta sharkeedu waa ku filan yahay